khasaaraha dhabta ee cadanu manini sheegaba ilaahay yiri waa qofka isagiyo ehelkiisa banka qiyaama intay yimaadeen ay wada khasaareen waa maxay ku khasaareen ilaahay nagama yeelo allah naga badbaadiyo xagga naarta ayaa loo qaaday faman zuhziha 'an an-nar wa udkhila al-jannata faqad faza ba ilaahay qofka maalinka aakhiradana maaragtaan naarta laga ilaaliyo naarta laga dheereeyo laga badbaadiyay ee jannadana la geliyay kaas liibaani ba ilaahay yiri khasaaraha iyo liibaantu tan adduunyada maaha eebaluu liibaanay oo muxuu ku liibaanay wallahi adduunyadiisa baa u qaraxday bay ku oranayaan eebaluu liibaanay muxuu ku liibaanay dhashiisa baa u aflaxdo wada jaamiciye noqotay eebaluu liibaanay muxuu ku liibaanay ما شاء الله أدوية سبب بركودي الليبان معها خسارة إيا الليبان لوضب الدون كان دوشي إذا إنت جوجنو لما أركي كرايو بانك قيامة قفك كتاب قيسا قعنت مدق لقسيو النار إلهي كبت بادية جنة حق يد الله قاعد كاسا الليباني قفك مالك آخرة أنا كتاب قيسا قعنت مدق لقسيو النار حق يد الله قاعد أنا كاسا خساري بركة إلهي وحولي والعصر إن الإنسان لفي خسر إلهي دار انتو هرمريه بوليه بن آدم كدمانتي خسارة عبد كجران با إلهي نحن أبو جران خسارة مركا إلهي وشيغي ما خسارة إنك ومقام وخسارة وين ويان والعياذ بالله سيدنا عمر بن الخطاب عنه مالين يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقى وريد حربانك القيامة جبريل عليه السلام باكون وابدون دتك الليباني دتك خسارة ملك جبريل إن فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا وإن فلان ابن فلان قد شقى شقاوة لا يسعد بعدها أبدا والعياذ بالله ملك الجبريل أي كتاب ينتو صوق هذا قفك مسلم كمؤمنك أدونك دوشي إذا إلهي كسو أضع عينتو اللي بأيو لا يهي هبل هبل قول لي باني سعيد بو نقضي شقاوة دمنا حديته لدم دم وارك معي الله ينقل لك كواس ككلنا وحال لندن هبل هبل وخسارة خسارة ودب دم بحديته لوسو كعين ملي بان يكاسنا والعياذ بالله مركا خسارها الله ينقل باديو خسارة مركا محلك يقبل بادا يا قرآن كان نوشيك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وأفر خصلة وأن كلام مرمين خصلة كوباد وإيمان لما يشترك خصلة لبعض وعمل صالحة خصلة صدحات ودعوة عندك حق الله قول دردار مو أمد حق الله قارسيو خصلة صدحات وحويان وحسن الخلق وهلك أوصل ليس أيتهاي صبر qofka xaqqa ummadda u gaarsiinaya ee ummadda xaqqa u bandhigaya waa inuu xidhaa dhar la yiraahdo magaciisa as-sabr waa inuu hada ninka muslimku markuu leeyahay ummadan xaqqa u sheegay oo gaarsiinaya ib farbada ba ka hor iman doontee yatasallah bisalah as-sabr bil ilmadu waa inuu dharka sabriga adkaysiga waa inuu qofku xidhaa afarta khasladood qofka laga helo ba khasaaraha ka soo baxaya iimaan dhamaystiran إيمان كان ذاتك example كنوغا وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأن إياك إن المؤمنين أي أهايين إلهي بأمر خاتك عويري والمؤمنون كلنا آمنا بالله مؤمنين إن كمال الإيمان إياكو أي قارين صادقي الإيمان إن النقدين بل يري إلهي بأمر خاتك فرم رقا أفري وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها إلهي يقول كلمة التقوى وكلمة التوحيد كلمة الإيمان ويانا لا إله إلا الله ويانا إلهي وقلبك وذلك أهل كيدين وين نقدم بإلهي وحق بأولها هي كلمة أين قلبك وذعان دقنو وزين في قلوبهم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون إلهي باشي يقول إنه كلمة إيمانك توحيدك قلوبتooda ayaa ku qurxinay baa ilaahay yiri gaalnimadii iyo wixii gaalnimadu ay hoosta ku wadato dhanna ilaahay baa nacsiiyay iyaga walladina tabawwa'u ad-dara wal iimaan bal iimaan bal lagu magac daray in reer Madiina
dad iimaan leh inay ahaayeen ayaa qur-aanku caddaynaya oo muuminiin ay ahaayeen marka iimaanka laynaga doonaya bay culimmadu leeyihiin iimaanka zamanka dadka muslimiintu ay sheeganayaan maaha iimaanka ummadda laga doonaya qur-aanku uu sheegay mar walba haddaad maqasho ila aladiina aamanuu ina aladiina aamanuu waaladiina aamanuu iimaanka loo jeedo waa iimaankii asxaabu muxamed ay gaadheen waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa iyaga tarbiyadeeyey oo macallinkoodu nebi maxamed buu ahaa sala allahu calayhi wasalam marka iyaga iimaankoogu halkii la doonayay buu gaadhay halkii la doonayay heer xataa wuxuu gaadhay raggii dagaalka bader nebiga kala qayb galay aan gaalnimo dambe inay ku dhacaan aan laga shaki qabinba badriyiin xaatib binu abi baltaca ninka la odhan jiray ee saxaabiga badriga ahaa sirtii nebi maxamed buu gaalada rabay inuu u gudbiyo markaa buu nebigu cali iyo shadaad buu nebigu diray wuxuu ihi naag dhar noocaasa wadata oo melehiblaayo maraysa buu nebigu ku yidhi soo qabta naagtaas oo maxay sidaa sir inaku aan leenahay bay quraysh u sheegaysaaye sir baa loo dhibay waddaay soo qabta cali iyo saxaabigii shadaad intay israaceen ayay gabadhii halkii u fadhiisteen iyadoo xoolaheegii wadatay halkii timiday markaasay yidhahdeen soo saar waxaad waddo waxba ma wato bay tiri waa kaasay arkay baar maxaa sitaa markay labadoodii ay yaabeen ay yidhahdeen soo dhaqaaqeen ayay isla hadleen oo waxay sidaahdeen oo nebi maxamed baa nagu yidhi gabadhaas sir bay naga sidaa innaka sir aan leenahay baa loo dhiibo quraysh lagu wadaa ya dee ma nebi maxamed baan hadalkiisa beenaynaa oo iyada warkeeda ayaan qaadanaa awa iimaankii islaamnimadii laynagu tuhmayay bay asxaabtu yidhahdeen labadii saxaabi baa isqabsatay cali iyo shadaad miqdaad iyo shadaad midkood buu ahaa dabeedna markaasay ku noqdeen naagtii ku yidhahdeen ama gacantaan kuula imanaynaa ama sirtaad naga wadad halkaa soo dhigi timaheegii tidcanaa intay furtay baa la yidhi ayay ka soo saartay warqad sirtii ciidanka nebi maxamed tiradooda iyo waxay ku tashadeen iyo meeshay rabaan inay ku duulaan sirtii oo dhan bay u siday gaalada warqaddii baa laga soo saaray nebigaa loo keenay sal alla alay slam iyadii iyo warqaddiiba warqadda ninkii qoray ee sirta nebi maxamed u sheegaya quraysh majmaca nebiga hor fadhiya buu dhex fadhiyaa arrintaasi soo arrin khatara soo maha dowladdii islaamka ninka sirteedii gaalada u gudbinayay waa la furo waa la akhriyay isagiina uu fadhiyaa meesha cumar binu khadaab baa markiiba kacuu yidhi nebi allow munaafiqan nagu dhex jira eena dhex fadhiya qoortaan ka gooya igu fasax buu ku yidhi markaa buu nebigu u kaaday cumar ha degdegine xaatib oo saro kac marka isagiibaa gacanta taago yihi nebi allow ma hadla hadal baa lagu yidhi ha igu degdegine buuhi haydilino ha igu degdegine runtaan iniin sheegayaa buuhi dhegaysta ragga muhaajiriinta quraysheed nin walba ubadkiisii iyo baylahdiisii iyo reerkiisii makuu kaga yimiday waa degaankoogii weeyaan laga dhici maayo xoolahoogii ubadkoogana la dhibi maayo aqaladoodiina laga qaadan maayo waayo nin walba tolkii iyo dadkiisiiba u ilaalinaya buu yidhi amaa anigu magaalada maka degaankayga ma ahayn degaankayga ubadkayga iyo islaantaydiibaa quraysh dhex fadhiya waxaan uga baqay inay iyo ubadkayga islaantayda iga dhibaan marka waxaan sirtaada aan ugu gudbinayeen ugu warramayey ha is yidhaahdaan xaatib annaku magaalada madiina noo joogaayo sirtuu noo soo gudbinayaaye reerkiisa iyo ubadkiisa u daaya sidaasunbay iga ahayde gaalnimo aan ilaahay iyo nebi maxamed aan ka gaaloobay igama aabuudi igamana ahayn markaabuu nebigu uhi iska fadhiiso ilaahay xaggiisaan war ka sugaynaaye fadhiiso subxaana allah qur-aankan markaa soo degaya moogta zamanulwaxyi baa la joogaayo qofka qalbigiisa waxa ku jiro qur-aanku ka warramaya iyo ninkan qasadka uu ka lahaa arrinkan suurat lmumtaxin awaa-ilkayga markaa soo degay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum wliyaaa soo mahay tulquuna ilayhim bilmawadati waana aclamu bima akfaytum ila aakhiri alaaya waxaa la yidhi aayaddaasi ilaahay waxa uu ku bilaabay yaa ayuha aladiina aamanuu duulkii ilaahay iyo nebiga rumeeyeyow ha ka yeelanina baa la yidhi gaaladaas waa cadowgii ilaahay waana cadowgiinii saaxiib ha ka yeelanina baa ilaahay yidhi
saxaabigii iimaan baa isaga loogu magac daro nin mu'min inuu yahay aayadu cadaysay gafka uu ku dhacayna mar labaad inuu ku dhacana ilaahay waa uga digay bal fiirso iimaan baa isaga loogu barkaatay fur inuu mu'min yahay markaa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam run buu inii sheegay buu run buu sheego waa ka quraankeena uu noo warramay buu ilaahay waxyigiisina uu cadeeyay inuu ninkan yahay mu'min markaa buu nabigu ku yiri ya Umar ninkan waa badri weeyaan waa badri shahida badran dagaalkii badar buu nabiga kala qayb galay reer badarna waxa lagu yiri ifcalu ma shiitum faqad ghufira lakum waxa doontaan basameeya inka dambigiina waa la dhaafay oo macnaha hadalku waxay culimadu yiraahdeen nin badri oo dagaalka badar galay walow xaqaf waa bani aadane laakiin inuu gaalnimo dib ugu noqdo suuul khaatimo oo ku dhintaa waa waxaan dhici karayba yani iimaankooda ilaahay baa u markhaati furay inay yihiin dad muuminiina oo sina aan islaamnimadooda iyo diinta qalbigooda gashay kamaba noqonayaan baa ilaahay yidhi jibriil baa nabigeena u yimid sallallahu alayhi wasallam oo ku yidhi dadka dagaalka badar raggi kala qayb galay nabi allah saad u aragtaan oo makaanadee bay ninka niga taagan yihiin markaa buu nabigu yidhi sallallahu alayhi wasallam min afdal almu'miniin weeyaan raggi dagaalka badar igala qayb galay maalintay diintu qariibka ahayd ee ciidanku iska itaaliya raggi ila joogsaday buu nabigu yidhi waxay yihiin min afdal almu'miniin mu'miniinta kuwa ugu fadli badan markaa buu nabigu ku yidhi jibriil baa yidhi wakadalika miman shahida badran min almalaa'ika dagaalkii badarna malaa'igta nagala qayb gashay annakana halkaasay noo taagan yihiin buu yidhi marka iimaankaas xaqiiqadiisa innakana allah ina siiyo iimaanka la doonayo iimaanka soomaalida maaha bay culimmadu leeyihiin waa iimaankii asxaabta iimaankeenu maanta muxuu iska noqday dee gallinba dhinac buu jiraa soomaaligu subaxdana masjid baad ku arki galabtiina qabyaalad baad ku dhex arki ninkii muslimka ahaa ee masjidka dikriga ku badinayay ayaad arkaysaa maqaaxida dhexdeeda isagoo kale ree hebel inaga dhiciya annaga kharashka soo dirayne marka islaamnimadii aaway markaas muuminkii almu'minu lilmu'mini kalbunyaan baa la yidhaha muuminku muuminka kaluu dhis u yahay sida dhiskaas uu isku qabsado isku adkaynayo ayaa qofka muuminka le walaalkiisa muuminka uu yahay dhis lidalika iimaankaasaa laynooga baahan yahay camal saalixa salaadii soonkii zakadii sadaqadii khayrkii tawaasoo bilxaqina waa dacwadii in ummadda xaqa loo sheego gaaladana in islaamnimada loogu yeedho muslimiintana in loogu yeedho maaragtaan tajdiid aliimaan oo la yidhaha war iimaankiina ha jadiidino war masaajidda ha soo galno war qur-aanka ha baranno war dacwadda ha ka shaqayno war daad baa adduunyada socdo fidnad ka sayl sida daadka u socota adduunka timidee waxaan kaga badbaadaynaa waa dacwadda ha ka shaqayno oo dacwadu diinta islaamka way iyada ugu horeysayba salaada iyo soon iyo zake iyo xaj intaasoo dhan waxaa ka horeysay waa dacwad oo nabigeenu sallallahu alayhi wasallam markii nubbi'a biiqra baa la yidhi wa ursila bilmudaththir nabiga sallallahu alayhi wasallam nebinimadiisu waxay ka bilaabatay waa suuratu iqra mudaththirna nabiga waa lagu diray suuratu mudaththirna waa maxay waa shaqadiisii inuu dadka khayrka gaarsiiyo u nasteexeeyo marka inaguna maanta muslimiin baa ilaahay naga dhigay boqolkiiba boqol muslim laakiin dadka gaalada ku dhex nool laha inaan dacwadda gaarsiinaa loo baahan yahay oo dacwaddu akhlaaq bay markaa u baahan tahay sabirku waa maxay waa akhlaaq weeyaan sida salaada iyo cibaadada iyo soonka iyo xajka bilaa ikhlaas ilaahay uusan kaaga aqbalaynin dacwadda dadka inaad gaarsiisaana waxay u baahan tahay akhlaaq wanaagsan inuu hada qofka muuminku qof dabeecad wanaagsan qof dulqaad badan qof naxariis badan qof maaragtaanay ummadda u ducaynaya qof ummadda u damqanaya cumar bnu khadaab radia allahu canhu siiradiisa waxaa ku taalla nin baa uga yimid maaragtaanay xagga iyo abaa muusa alashcari dhulku xukumayay markaasuu ciidankiibu markaa warkooga u keenaa iyo dowladdii islaamka sii fidaysay halkaa baan qabsanay intaa uu masaajid baan dhisnay intaabaa dad soo islaamtay intaabaa diintii la baraa meel heblaayaan ku duullay guushii baa ilaahayna siiyey xoolahana waan kuu keennay markaabuu cumar ku yidhi hal min muqarabati khabarin buu yidhi war hariiba maxaad haysaa war hariiba oo cusub markaa buu yidhi rajulun kafara bacda islaamihi war hariiba waxaan hayaa nin intuu soo islaamay dib gaalnimadii ugu noqday baan warkiisa ku hayaa buu yidhi famaada facaltum bihi buu ku yidhi maxaad ku samayseen
faqarabnaahu buu yihi waan soo dhoweynay fadarabnaa cunuqahu qoortaan ka goynay buu yihi man irtada can diinihi faqtuluuhu waa siduu xadiisku dhigaya moogta qofka diintiisa ka noqda maxaa lagu samayn waa in la dilo cumar madaxuu sidaa u ruuxay miyaad buu yihi miyaad toobadda inuu toobad keena aad u bandhigtaana buu ku yidhi hadduu ini diidana jeelka maad ku xidhaan buu yihi lacalahu yatuubu wa yuraajicu laga yaabaa inuu toobad keenu ka soo noqdo gaalnimadee gacantuu cirka u taagay cumar ilaahow anu inay dilaan ma amrin buu yidhi meeshay ku dileenna ma joogin khabarkaa markuu isoo gaadhina raalli kama ihi buu yihi saxaabadu sharcigay mareen sharciga lama khilaafayo laakiin waxay qisadani ku tusinaysaa naxariista cumar qalbigiisa ku jirtay inakuna addoontii baan idhahnaa soo maa kuwan madmadoy waddanka nila jooga waa kan waa addoontii kanaa maxay xaafadda nooga shaqeysaa waa addoontii masaajid xalay aan ka hadlayaba mixraab weyn buu lahaayo mikrofoonadii waxbuu hagaajinayay mid moogtahay salaadii baan gallay isaga halkaa buu fadhiyaa intii wacdigaan wadnana halkaa buu fadhiyo qalabkani waxbuu hagaajinayay yar mu-adin aada u fiican baa markaan ku yihi war ninkan halkaa hudahun buu ku jiree muxuu yahay markaasuu yihi waa qoladii kale buu yihi ha waxaa waa qoladii kale soo maahin ha dee diinta islaamka ma u bandhigtee baan ku yihi ma u bandhignaa imikadanba markaasuu kan la shaqaynaya ee muslimka u bandhigayo kitaabna waan siinay wuxuu yihi in yarii kaadiya waan soo fikirayaaye way fiican tahay saasaa loo baahan yahay in qofkan loo naxariisto loo damqado qof maanta dab kusii dhacaya dab adduunya maad ku egi lahayd bal sheega walow isku diinba cadowgaagiiba ha noqdo cadowgaagii cadow qofaad tihiin oo dab kusii dhacaya ka waran war dabka ka leex war dabka ka jog waa dab adduunyo asxaabta nebigu waxay arkayeen qofka gaalnimada ku dhimanaya dabkii akhre inuu ku dhacayo cumar bnu khadaab gacantuu cirka u taago ilaahow anu ma amrin buu yihi meeshay ku dileenna anigu ma joogin warkaa markuu ii soo gaadhayna anu raalli kama ihi buu yihi ilaahayo waad maqlaysaa walaal naxariisan yeelano qofka aan naxariisan buu nebigu yihi ilaahay uma naxariisto marka suuradulcasr bay culimmadu leeyihiin khaslad ka mida afartaa khasladood hadday nolosheena ka maqan tahay khasaaraha waa ku jirtaa una ogow ilaa afartana khasaara lagaga baxaya iimaan dhamaystiran iyo diin dhamaystiran iyo dacwad ummadda la gaadhsiinayo gaaladana islaamnimada loo bandhigayo muslimiintana iimaanka iyo masaajidda loogu yeerada ninka tiisa dar yeelay ayaa ta kale ku dara nin caddaana oo faransiisa gabadh muslimaday markaa isjeclaadeen markaasa reerkoogiibuu u yimiday waxaa gabadha waa lagu siine soo islaam waa yahay waan islaamay u islaamay ninkii markuu islaamay kadib ayuu aqalkii waxbaan diyaarsadee reerkii ha lai soo wareejiyo inanta aabbaheed baa ku yidhi dee waad islaamtay inanteediina waan kuu meherino waan ku siinay laakiin hal maalin maskiidka kulmaanu arkinin wuxuu yidhi muslimiintu dee waa laba qaybood baa tihiin buu yidhi adinku markuu dhaco ina masaajiday soo gashaa ina bannaankay ku hadhaa buu yidhi marka inta maskiidka soo galaysa anu kuma biirine inta bannaanka joogtaan ku biirahay buu intaasaana badan buu yidhi soo runtii mahda ninkaas ninka tiisa dar yeele baa ta kale ku dara marka sidaa darteed insha allah dadkeenna qaraabadeenna asxaabteenna asdiqadeenna dacwadda han gaadhsiino oo khayrka ha ka shaqayno oo khayrka haddaanan laga shaqaynin waa shar waxa laga shaqeeyaa masaajidka haddaanad camirin waa maqaaxida waxaad camiri haddaad ummadda khayrka ugu yeedhin sharkaa lagugu yeedhi haddaad adigu daaci noqon adiga dacwadda baadilka kugu dhici bay culimmadu leeyihiin dee insha allah dhahada inaan diinta ka wada shaqeyno dacwadda ka shaqeyno wada niyooda insha allah diinta dadaalkaygaasa inoo ballana insha allah dembigeena allaha dhaafo dembiga waalidiinteenna allaha dhaafo diinta allah inoo macaaneeyo maralkeenna allaha shaafiyo mawjaadkeenna allaha u naxariisto amni iimaanka allah inoo ziyaadiyo istiqaamiyo qabuuliyadna allah ina siiyo xusna alkhaatima washahaada cinda almowtna allah ina siiyo
سوء الخاتمة الله نجبت باديو صلى الله على سيدنا محمد.